magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. garoonka diyaaradaha Ugaasnuur ee magaalada Dhuusamareeb waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda. gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow oo soo dhaweeyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa booqashada hogaamiyahan xisbiga wadajir u rajeeyay inay noqoto mid qayb ka sii qaadatay suugaynta maskaxda siyaasiyiinta Galmudug laguna horumarinayo maamulka cusub ee Galmudug. gudoomiye soo dhawaada adiga iyo xisbiga aad hogaaminaysaan runtii aad iyo aad aan ku faraxsanahay. deegaanku waa deegaankiini, dalku waa dalkiini. qof kasta oo reer Galmudug waa loo yeeray. waxaa la idinkaga baahan yahay cilmigiina iyo caqli iyo calaf iyo cudud waxaad haysaan inaad Galmudug ku kordhisaan. Galmudug meel fiican maanta maraysaa, horeeyaa loo dhaqaaqay. adinkana maaragtay runtii waa nala joogteen, haddana waa soo daahdeen. waxaan rabnaa insha Allah meeshaas hadda marsiinaan aan ka sii wada anba qaadno. soo dhawaada, waa mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir ayaa booqashadiisan oo maalmo kooban qaado doonto ku micneeyay inuu tashiyo la qaadan doono madaxda iyo bulshada reer Galmudug kadibna uu sii gudbi doono deegaanada kale ee maamulka Galmudug. waxaan aad iyo aad runtii rabaa halkan uga mahad celiyo maamulka iyo siyaasiyiinta kale ee deegaanka iyo madaxweynaha iyo shacabka Galmudug intaba sidii sharafta iyo milgaha lahayd ee noo soo dhaweeyeen maanta oo aan ka filaynay. magaalada Dhuusamareebna ku soo dhaweeyay waa soo dhaweyn aan filashadeeda qabnay runtii aanan ka filayn dadka deegaanka ah. aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa in aan soo xoojino booqashada halkan iyadoo meeshan shirar muhiim ah oo isdaba joog ah oo Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 ay ka dhaceen oo masiirka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ayaheeda dan u ah looga tashanayay inaan maanta soo gaarno. aad iyo aad ay farxad noogu tahay. maalmahana waan sii joogi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. arki doonaa madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba kulamo maaragtay la yeelan doono. aad iyo aad ayaan runtii mar kale uga mahad celinaynaa soo dhaweyntaas qiimaha leh, sharafta leh, maamuuska sare leh ee aan loo kala harin shacab iyo mas'uuliyiin iyo madax intaba. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan maalmaha aan joogno aan kala bogo doono. socodkeennana uu ku wajahan yahay deegaanadan Galmudug ilaa iyo Puntland intaba. mar kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida sharafta leh ee noo soo dhaweysay. safarka hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacayeen shirar looga hadlayo marxaladaha kala guurka siyaasadeed ee dalka iyo go'aanka gaarista hanaanka doorasho ee dalka ka dhici doonta.